go'aan qaadashadu waa imtixaanka aasaasiga ah ee maamulka maxaa yeelay go'aan gaadhidda arrinta ku hortaalla iyo kartidaada dhacsiinta dadka kale inay aqbalaan go'aankaagu waa waxyaabaha saldhigga u ah ku guulaysiga hogaaminta ma suurtoodo in qof kasta hogaamiye noqdo maxaa yeelay jagooyinkii kale ayaa u baahan dad ka shaqeeya ilaahi dadka abuuray wuxuu siiyey kartiyo kala duwan si jago kastaaba loogu helo qof munaasib u ah go'aan qaadashaduna waa fanni ku dhisan cilmi una baahan dad karti iyo awood u leh casharada soo socdaana waxay kugu caawinayaan sidaad uga shaqaysin lahayd kartidaada go'aan gaadhidda waxa ay madaxdu u qaybsantaa laba nooc nin halyey ah oo isku kalsoon oo shakhsiyadiisu dadka soo jiidanayso ninkaasi wuxuu gaadhi karaa go'aano isagoo ku kalsoon inay shaqaalihiisu ayidi doonaan nooca caynkaas ah aad buu u yaryahay kitaabkana looma qorin maxaa yeelay uma baahna nooca labaad waa hogaamiyaha aad u shaqaynaya si uu ugu qanciyo dadka kale inay aqbalaan go'aanadiisa ninka madaxda ahna shaqadiisu waa inuu go'aano ka gaadho arrimaha ka hor imaanaya waa inuu go'aanadiisaasna u turjumo shaqo la taaban karo waxaa dhacday inaan madaxda qaarkood ku dhicin inay go'aano adag qaataan iyagoo door bidaya nabadgelyada iyo natiijooyinka ka dhalan kara go'aankooda madaxda jidka raacda horumar ka gaadhi maayaan hogaaminta maxaa yeelay mushkiladdu uma taagnaanayso hadduu xallin kari waayo waxaa u soo baxaya rag kale markaas kuwaas baa jidka ka leexinaya oo jagada ka tuuri doona waxaad ku qaadataa mushaharka inaad fikirtid wax hogaamisid iyo inaad wax kala goysid waxaa laga yaabaa inaad marmar dib u dhigtid go'aan qaadashada adigoo la eeganaya waqti munaasib ah oo ku habboon wax ka qabadka arrinta ku hortaalla dib u dhigidda go'aanku waa inaanu noqon gabasho ama ka dhuumasho dhibaatada ka imaan karta laakiin waa inuu ahaado in la sugo inta arrintu u bislaanayso wax ka qabashada go'aanku waa xukun waxaanu u baahan yahay xujo uu cuskado markaas si go'aanku u noqdo mid saxiix ah arrinka go'aanka ku saabsan si dhab ah loo darsay loona ururiyo xaqiiqooyinka la xidhiidha ee saameynaya go'aanka marka arrinku uu u bislaado wax ka qabashada ayuu go'aankuna habboon yahay laakiin markaad qaadanayso go'aamada ma dareemaysid inaad tallaabooyin ka qaaday sababtoo ah waad ka caado yeelatay inaad daqso go'aana u gaadhid laakiin haddaad u fiirsato waad ka heli kartaa inaad tallaabooyinkaa qaaday intaadan go'aanka soo saarin marka ay tallaabooyinkaasi caado ku noqdaan waxaad noqotay hogaamiye fuliye ah oo bislaaday oo waayo arag ah waxaa la weydiiyey nin madax u ahaa shirkad weyn oo macdanta samaysa sida uu go'aanada u qaato wuxuu ku jawaabay u malayn maayo inuu jiro nin madax ah oo sheegi karo siduu go'aanka u qaato aniguna sidoo kalaan ahay oo ma garan karo nin kale oo madaxayna wuxuu kaga jawaabay su-aasha ma jirto qaacido u dhigan go'aan qaadashada raggaasoo kale go'aan qaadashadu waxay ka mid tahay howlmaalmeedkooda marka uma baahna inay kala dhigaan arrinka hortaagan si ay go'aan u gaadhaan laakiin waxay awoodi karaan inay maskaxdooda mushkiladda ku xallilaan si dhaqso ahna go'aan uga qaataan mana jiro dugsi ama qofku baraya sidaad go'aan u qaadan lahayd ee waxaad ku talagelaysaa aqoontaada iyo waayahaaga si aad u qaadatid go'aan ugu habboon mushkiladda ku hortaalla taasna macnaheedu waa inaad aqoon dheer u leedahay mowduuca mushkiladda iyo waxa la xidhiidha iyo siyaabaha wax looga qaban karo waxaana waajib ah inaad isku kalsoon tahay heeganna u tahay inaad fulisid go'aanka aad gaadhaysid waxaa la yidhaahdaa culimmadu waxay daaha ka qaadaan xaqiiqooyinka cilmiga ah madaxduna way fuliyaan culimmadu way soo saari karaan hub khatar ah laakiin ninka amraya in la sameeyo ama lagu dagaal galo waa hogaamiyaha fuliyaha ah ee ma aha aqoon-yahankii soo saaray waxay faafisay mujallad Maraykan ah oo loo yaqaano Farsha sanadii 1955 in madaxda shaqo fulinta siyaasiyiinta iyo saraakiisha ciidamadu yihiin kuwa dunida ugu go'aan qaadashada badan laakiin saraakiisha ciidamada ayaa ugu horeeyay wax bilaaba tallaabooyinka shanta ah ee kala dambeeya waxaana tilmaamay taliyihii ciidanka cirka ee Maraykanka oo la oran jiray Hayolf waxaanu yiri si loo gaaro go'aanka dhabta ah waa in la raaco tallaabooyinkan kow waa in la sugo muhiimadda labo waa in la tilmaamo mowqifka ama xaaladda iyo tallaabooyinka la qaadayo saddex in la xallilo tallaabooyinka ay qaadi karaan iyo kuwa ka soo horjeeda afar in la isbarbar dhigo tallaabooyinka shaqada ee suuragalka ah si loo qaato tan ugu habboon shan
kadibna waa in go-aanka la qaataa. dariiqadan waxaa degsaday ciidamada, laakiin maamulka madanigana waa lagu socodsiin karaa. laakiin madaxda ka qaada dhigatay go-aan qaadashadu ma xasuusanayaan inay dariiqadan raaceen iyo in kale. si loo gaadho go-aan saxiix ah waa in la helo ra'yiga toosan iyo waayo aragnimo. lagumana bari karo sidaad u heli lahayd ra'yi toosan, laakiin waxaad kordhin kartaa garaadkaaga si awoodaada wax kala goyntu u korodho. waxaa kaa hor imaan kara saddexda nooc ee go-aamada ah: go-aamo ku lug leh habka socodsiinta shaqada, 2 go-aamo ku lug leh qorshaha iyo siyaasadda shaqada, 3 go-aamo ku lug leh xaaladda degdega ah iyo arrimaha khatarta ah. waxaana la arkaa labada nooc ee hore inay wax badan ku soo mareen oo ay caadi ku yihiin, mana aha go-aamo degdeg ah ee waxaad haysataa waqtigaad kaga baaraan degi lahayd. nooca saddexaad baase u baahan karti iyo keesinimo. nin kasta oo hogaamiyaha ah wuxuu la kulmaa xaalado adag oon caadi ahayn. go-aanku ka qaatana ay ka dhalanayso natiijooyin iyo mas-uuliyado loo baahan yahay in la tixgeliyo. laakiin waxaa jira hogaamiyaha feejigan inuu ka tabaabushaysto dhacdooyin kadisada ah, maxaa yeelay marka hore ayuu arrimaha qorsheeyaa kuna talagalaa waxyaabaha ka imaan kara oo dhan. hadduu sidaa yeelana waxa yaraanaya xaaladaha khatarta ah. marka haddii aad go-aan adag qaadatid, waxaa waajib ah inaad sharaxdid ood ku qancisid dadka aad madaxda u tahay wixii kugu xambaaray inaad tallaabadan qaatid iyo sababta ay kuugu suuroobi weydid in aad la tashatid. waxaa laga yaabaa inay kaa garaystaan xataa haddii aad waxyeeshay danahooda. wax kastaaba ha dhaceene waxaa waajib ah in la helo wada shaqay si loo fuliyo go-aanada, loona helo xamaasadda iyo mooraalka lama huraanka u ah hirgelinta mashruuca. xaqiiqooyinka ra'yiga toosan. go-aan saxiixa waa ka miisaanka lagu qiyaaso go-aanka xaqa ahi. waxaase dhacda marar badan inaanay fududayn helidda xaqiiqooyinka. marka waxaa qasab ah in male iyo maskax lagu socdo. waxaa suurtooda inta la sugayo xaqiiqooyinka in arrinku faraha ka baxo ama fursadu ku dhaafto, laakiin ku talagal in go-aanka ku dhisan malaha aanay hubnayn natiijada ka dhalan doontaa. waxaa ku jira isbiimays, markaa u diyaar noqo hadba wixii kula soo gudboonaada. haddii aad weriye dhacdooyin u noqon lahayd wargeys, guddoomiyahaagu markasta wuxuu hubsan lahaa inaad ka jawaabtay 5 su-aalood oo kale ah: waa kuma, waa maxay, waa halkee, waa goorma iyo waa sidee. marka aad go-aan gaadhayso aad isaga hubi inaad ka jawaabtay 5taas su-aalood. waa laga yaabaa inaad marka hore ku dhibtootid, laakiin waa nidaam caqligal ah oo waxtar leh, waana tan listada aad ereyada uga faa'iidaysan lahayd. waa kuma. 1 kuma go-aanka qaadanaya, 2 kuma mas-uul ka ah natiijooyinka, 3 yaa ka qayb qaata talada go-aan gaadhidda, 4 kuma ayay waajib ku tahay in lala socodsiiyo go-aanka marka la gooyo kadib, 5 kuma ayaa go-aanka fulinaya. qaybta labaad waa maxay. 1 waa maxay go-aanka ay waajib kugu tahay inaad qaadatid. 2 waa maxay waxyaabaha kugu hanuuninaya go-aanka gaadhidda. 3 waa maxay xaqiiqooyinka kaa maqan, xageedse ka heli kartaa. 4 waa maxay faa'iidooyinka ka dhalan kara go-aanka. 5 waa maxay dhibaatooyinka ka dhalan kara go-aanka. 6 intee bay ku siman tahay awoodda go-aanka gaadhiddu. qaybta saddexaad xagee heerkeebuu ku dhammaanaya go-aanka aad qaadatay. 2 xageed ka helaysa dadka kula talinaya ama gacan kugu siinaya go-aanka marka loo baahdo. 3 xageed ka helaysa xaqiiqooyinka iyo xogta aad u cuskan karto go-aanka gaadhidda. qaybta afraad waa goorma. 1 waa goorma waqtiga ku habboon go-aan qaadashadu. 2 goorma ku habboon in la faafiyo. qaybta 5aad waa sidee. 1 sideed u koobi kartaa dhammaan jidadka lagu xallin karo mushkiladda si go-aan saxiixa loo gaadho. 2 sideed uga qayb geli kartaa dhammaan dadka go-aanka ku lug leh. 3 sideed u fulinaysaa go-aanka. 4 sideed ula socotaa in go-aankii sidii la rabay uu u fulay. haddii ay kuu suurto gasho inaad ku dhaqantid mabaadi'da liisadan ku qeexan, waxaa koobtay aasaaskii maamulka oo dhan, maxaa yeelay go-aan qaadashada waxaa ku dhan aasaaska hogaaminta oo dhan. sidaad ugu qancin lahayd shaqaalahaagu inay aqbalaan go-aanadaada, waxaa waajib ah in go-aanka kama dambaysta ah ee arrin kasta uu ka soo baxo ninka mas-uulka ka noqonaya natiijooyinka ka dhasha. markaase marka uu soo baxo go-aanku waa inay aqbalaan dhammaan shaqaalaha aad madaxda u tahay. sidaa awgeed waa in laga qaybgeliyo samaynta go-aankii intii suurtagalka ah. haddii kale
lala socodsiiyo iyo sababaha dhaliyay sida loo rabo iyo wixii la xidhiidha oo dhan. waxaa habboon inaad ku geesi gelisid ama ku dhiirigelisid shaqaalaha aad madaxda u tahay siday uga qayb qaadan lahaayeen go-aanada. maxaa jira mabda odhanaya sidaad jeceshahay in lagula dhaqmo dadka ula dhaqan. adigu waxaad jeceshahay in madaxdaadu kaa qayb geliso samaynta go-aanada taabanaya shaqadaada ama danahaaga. dadka aad madaxda u tahayna iyaguna waxay kaa sugayaan waxa aad madaxdaada ka sugaysid. ka qaybgelinta arrimaha dadka ay khuseeyaan waxay fududeynaysaa in la aqbalo go-aanada, waana fan ku dhisan dareenka garaadka qofka ee xidhiidhka aadamiga. laakiin waa inaad ogaatid in ka qaybgelinta samaynta go-aanada dadka aad madaxda u tahay inaanay wax kaaga tarayn go-aanka. mas-uuliyaddu ma qaybsamayso ee waxaa qaadaya natiijada madaxda keli ah. dadka kale waxay gacan kugu siinayaan u gudashada xilkaaga ee kula qaadi maayaan. hogaaminta dadku waxay u baahan tahay geesinimo, colool odayg iyo dadnimo. shirkadda liibaansan waxaa hogaamiya dad sifooyinka leh. dad aan sifooyinkaa laga helayn kuma dhacaan inay go-aan adag gaadhaan, maxaa yeelay ma rabaan inay qofna ka cadhaysiiyaan. laakiin sida runta ah dadkii oo dhan bay ka cadhaysiinayaan, sababtoo ah haddii aad arrimaha la kala goyn oon mashaakilka la xalin dadku kula socon maayaan.